dhammaan dadka sharafta leh halkan isugu yimi ay ugu horeeyaan habluhu jeclahan inaan magacaabo Anise iyo Shams oo runtii labadooduba magacoodu isoo gaadhay hablo badan oo aan hubo halkan fadhiyo oo xisbiga iyaguna la soo jihaaday inay jiraan odayaasha sharafta leh dhalinyarada gudoomiyaha London Belgium Ahmed Saciid ama Qaasim iyo guddida sharafta leh la shaqeysa dhammaantiin waxaan isku salaamayaa aan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi alxamdulilah ilaahay baa mahad leh ilaahay halkan isugu keenay baan u mahadnaqayaa isaga ayaanan weydiinayaa inuu wax walba inoo hagaajiyo hadday mid shakhsi tahay iyo hadday mid family tahay iyo hadday mid qaran intaba ay tahay noloshu weligeed ma tognoodo ilaa budka la isdhigayo waxbaa dhiman marka wax badan oo aynu ilaahay ugu mahadnaqno ayaanu haysanaa inaynu ugu mahadnaqnaa waa waajib waxaa kaloo mahadnaqayaa dadka sharafta leh xafladeen soo qabanqaabiyey rag iyo dumarba oo guddoomiyuhu kow ka yahay iyo tiimka la shaqeeya sharaf aad iyo mahadnaq aad u ballaaran ayaan iyagana aan usoo gudbinaya waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadka meelaha dhaadheer ka yimi hadday qolyaha France ka timi ay tahay mahad iyo Luxembourg hadday tahay oo cabdiqani ah iyo kolley groupka la socda reer de Holland iyo waska neighbor baan wanaanayaa waa jaarkii Belgium oo gudoomiye Cumar iyo dheer ay ka yimaadeen intiina reer Belgium aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga waqti qaali qof waliba waqti qaali ayuu halkan u soo huray ka waqtiga qaaliga nala wadaagaysaa aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa wadalkii afraad aan marayo Germany iyo Luxembourg iyo Finland baan ka imi markana waxaan joogaa waa Belgium insha Allah billahi kareem Netherlands kan soo gudbi doonaa waxaan u marayaa waxa weeye inaan idin wadaagno waxa uu xisbiga wadani doonayo inuu dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabto iyo xaaladda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaadirka ku jirto kaynta hadalka ugu horeeya waxaan ku bilaabayaa salaan aan idinka sido madaxweynaha mustaqbalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweyne ku-xigeenka mustaqbalka Maxamed Cali iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Xaaji Cali oo dhammaantood idin soo salaamaya Cabdiraxmaan Brito Finland baan wada joognay Brito haddii la yiraahdo Hargeysa ayuu ku beegaya Xirsina waa ka warhaysaan burcu fadhiya Maxamed Cali wuxuu u dhaxeeyaa Hargeysa iyo Boorame iyo Dilay iyo galbeedka ayuu u dhaxeeyaa hawl ku jira marka ma joogno berigii magaaladan aynu ka joogno anigoo yar baan siimaanada ka maqli jiray Antwerp
بريجي ورك اللي وراقة اللي سوسو دري شري اللي ورين شري ودنكي واحد ساكتشري هالك ساكتشرا وقت كان حاضر كان مشوق ما تروح نشوفنا seconds waxa ka dhaca wadankii inaad idinku halkan joogaan markii bay heli kartaan oo laga yaabo ka Hargeysa joogay eventska ka dhacaya Hargeysa aad ka war heli kartaan marka waxa la reerka iskuul yiraahdo warneys kuma seegana meel lama wada deganaa marka wada dhirsantii Soomaaliland xaaladda ay taantu waxaan ku raadayay ku jirto runtii waa xaaladaani horow ilaa maalintii lagu dhawaaqay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa maanta maalin ay ka adag tahay ma jiro madaxweynaha Muuse waxaa loo dhiibay oo مدير أحمد محمد سيلاي وكوريجي طلع سايستا يوم تد سايستا ما أنت هالكل شوفينه يحاول دوكسويه هذا الكاسونا ونكوّرنا رجعت أنا تاوكلي وأكوّر بس أنا رجيت الله عشان شايل يدور هذا موي من هذا بيجي كذا عاي المواطن qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay oo ah saraakiisha xisbiga wadani uu ka dhigay Hargeysa dabadeedna sidii argagixisada ciidan aaraaliyo loo soo diray oo garoonka dhexdiisa lagala baxay xitaa aan la sugin intuu gurigiisii tagayo oo adduunyada garoomada adduunyada oo dhan waa ka mamnuuc إلى خطر كسبت هاي موياني إلى عيد إنجليزو واي وابوه أتهير يوسف هاي وفا دب كويس مويان وعملا ذا موياني إلى قف كده السوق اللي هو بقف هو بهايستمعها أمر بيلك اللي يعمل كلني سحون أنت الله قاضي وهي ربش كده عيه هولي ذا دوتي صلاتي أتبي والله احترامن وغاشي أتبي والله احترامن madaxda xisbiga oo timi baan la ixtiraamin dhalinyaradii iyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo timi baan ixtiraamin waxaad moodaa dawladii aanu dhisnay ee aanu dooran waxa u dhaqaysaa sidii dawlad ku qabsatay dalkan iyo qarankan qori caadi waanu cambaaraynaa xariga Cismaan Cumar Dool waanu cambaaraynaa si cad waan shaki lahayn oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu u qalminayaan leenahay aan ugu xidhay muwaadinka xornimadiisana way si degdeg loogu sii daayaan ayaan maxaa ku raadayay ayaan leenahay doorashada lagu jira meeraysiga iyo halkay soo martay waa garanaysaa dhalinyara ku dhimatay rag baa lagu xidhay waxyaabo badan bay maxaa ku raadayay doorashada soo martay waxaan rabashkan oo dhan loo sameynaya waxa weeye in doorashada mar labaad dib loo dhigo waxaan leenahay waqtigaas ugu dhamaaday meeraysi ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland intii dhacday way ku filantay waxaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegayaa war waad aragtaan oo wax carqalad bay rabaan iyo waxaan la mahadin inay ummadda geliyaan yaa loo jooga waxaynu diyaar u nahay oo tabaabusheeda ugu jira oo aan halkan u marayaa oo Soomaaliland oo dhan cid waliba ay diyaar u tahay inay Soomaaliland ka dhacdo November 13 13 doorasho oo xalaal ah oo aan cidina dib u dhigi karin وانا نقدك يا مسبح عبدي محمد كاهن يا أفرت كل حيران إن إسكون ده إن عرق لديه محمد هذا يدور الشركة من جمهورية الصومال كذا يدورها
waxaan wadnaa cabdinaasir buu ahaa ninkii yidhi halkan ka hadlayay lahaa anigu waan ku cusbaa xisbiga waxaan u maleynayaa waa raggii kulmiyaan isgaranayno waa saaxiibadeedii qaaliga ahaa ee kulmiye ma fahamta ya ma garanaysaa de waan naqaanaa guushu halkay u socoto reer Beljam iyo reer wadani halkay joogana hadalkooda yidhi dee wada ka xishooday wada la hadlay hada wada taraya daado waxaan maanta la kulmay guddida habar jeclo iyo mustamboodkooda waan idinka waanay ayaan maanta wada qadeynay si milgale iyo maamuus leh iyo sharaf iyo karaamo igu yimi waan wada qadeynay waanu ka wada hadalnay rajada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland soo aan ka maqlayn Cabdinaasir waanu isla qaadanay waxaa la doonayaa reer wadaniyo xisbigii wadani wuu ballaadhay oo ummadda waxaa loo jeediyay inaad weelkeedii iyo hadalkeedii iyo taladeedii intaba la timaadaan madalada haddii kale si 17 iska faana waxaad tidhahdaa waanu guulaysanaynaayo dhaartaan noo dhiman ma fahantaa waxaas anagu noo maraan nolosha caynkaasa ma aqaani waxaan aqaanaa wax laga shaqeeyo oo laga hawlgalo oo waqti la geliyo oo laga miro dhaliyo beenbeen iyo wax la isku sawiray iyo faanfaan iyo no geemkaasi soo fara marka are you really serious Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Maxamed Cali waanu u wadno madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee mustaqbalka waxaanu qabnaa maanta nin kaga aqoon inaanu jirin tabarladii iyo dabeecadii buu leeyahay dulqaadkii buu leeyahay cilmigii buu leeyahay ixtiraamkii iyo karaamadii buu leeyahay laakiin shaqay u baahan tahay shaqay u baahan tahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waa aragtay gurigiisu waa guriga madaxtooyada maanta gobolladii baa ku soo jabaya reerihii baa ku soo jabaya waxgaradkii jamhuuriyadda Soomaaliland baa ku soo jabaysa waayo waxaa la arkaa Soomaaliland halkay ku socoto iyo inay u baahan tahay badbaado jiilka ku xiga inaynu uga tagno wixii laynooga tegay marka haddaynan sharixi karayn waxaad u taagantihiin waxaan doonayaa laba kalmood idinka sheego iskama doonin inaan kursi fuulo umana ciil qabno wasaaradu ragayga Cabdiraxmaan dhisaya tirada 3 wasaaradood baa soo qabtay sharaf iyo magacna waan kaga tegay ma garato waxaan u soconaa oo aanu u taagannahay oo Cabdiraxmaan u taagan yahay oo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta uu joogo u taagan yahay waxa weeye badbaadada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rabaa inaan shab qodob idinka sheego oo degdega oo aamin baynu joognaa goor dambe muxuu xisbiga wadani u taagan yahay muxuu kaga duwan yahay xisbiyada kale maxaa ku dhahdaa cararaya muxuu kaga duwan yahay ururada kale cararaya waxaan doonayaa inaad qalbiga gashato iyo maskaxda aad gashato oo aanay noqon lagu sheegin reerku xisbigan matalaya ama sida uu sameynaya ee aad ka fikirtid Soomaaliland waa maxay waxa u baahan tahay taagan qodobka ugu horeeya oo xisbigu taagan yahay wadani iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxa weeye waa midnimo
ummadda jamhuuriyadda somalilan kalaasqooya jooga ilaa kalooyacda jooga iyo inta u dhaxaysa waa dad walaalaa waa dad islaamay waa dad isu ehela waa dad walaalo waa dad ay ka dhaxayso deegaanka waa dad ay ka dhaxayso cawska waa dad ay ka dhaxeeyaan biyuhu kulmiye waa laba kulmiyaha musabixi maaha kiisi madaxweynaha sharafta lahay axmed maxamed siilaani kulmiyaha musabixi wuxuu sameeyey ummadii bahlogaleen isu geliyo wuxuu ka dhigay inuu kala qaybiyo sidii dadkii isticmaalkii ahayd divide and rule ayuu doonayaa inuu ummadda kala qaybiyo kursiga ku sii haysto waynaynaan aqbalin ummad la kala qaybinaya oo ummadda jamhuuriyadda somalilan ma jirto waa dad mid ah markaa midnimo waa qodobka ugu muhiimsan ee qarankan maxaan ku dhahdaa ee xisbigan uu taagan yahay qodobka labaad waxa weeye nabadgelyo halkaa haddii sheeko kale ka socoto microfonkan idin keenayahay kaalaya markaa waxa weeye nabadgelyo ayay ummaddan iyo qarankan dhammaantood ku soo caano maaleen maanta waad aragtay wax soo ka dhacay maanta waad aragtay qarankii halka uu marayo maanta waad aragteen beeraha la hubaynaya oo halkaynu ciidamada dhisanay hadduu mid military yahay hadduu mid boolis yahay hadduu mid sirdoon yahay hadduu mid badeed yahay reerii baa laleeyahay halla hubeeyo maxamed ibraahim cigaal ilaahay naxariista jannaa ka waraabiya ayay inoogu dambeysay maalintu markaasaynu hubka ka dhignay reeraha si aynu qaran u noqono muuse biixi iyo maxamed kaahindib bay rabaan inuu soo celiyaan oo beelaha la isku hubeeyo waanu ka soo horjeednaa iyadana waxaanu doonaynaa dalkan inuu nabad taasuu soomaali waa kaga duwanaa taasuu maxaan ku dhahdaay 33 sannadood uu ku caanamaalay uu ku soo jiray qodobka saddexaad waxa weeye cadaalad iyo sinaan in cadaalad la helo dalkan iyo sinaan la helo loo sinaado xilalka loo sinaado maxaan ku dhahdaay khayraadka ummadda loo sinaado wixii mashaariic ah ee dalka gelaya aan lagu salayn waa reer hebel oo aan lagu salayn kana xiga oo wali reer kulmiya la soo hadlo kasina huwa la booriya hallo ya ku booriya يعني يا كبوبية سيدا لو بوبا maxaa su'aalaha keenay maxaa fikriyada caynkaas keenaya sidee lagu waran karaa waa lagu boobaya aad wax wala kartaa aad u qaadan kartaa doorasho xor ah oo xalaal ayay ummadda jamhuuriyadda somalilan diyaar u tahay waana in la helaa cid laga baryayaana ma jirto qodobka shanaad waxa weeye dhaqaale kobcin ummadda jamhuuriyadda somalilan reerihiinii waraysta hadday ku hagu leedan yahay jaarkooda waraysta reero badan oo somalilan oo noolaa oo sharaf iyo cisi ku noolaa oo qurux badnaa ayaa 7 sanadooda muuse joogay maanta aan dabshidan كان دبد الشلمات اللي هو قدر وحو كله هي حالتي سيلاهي بقى رجدي الشعب كان يمطي تقاليه ما هي رزقو حيات تقاليه أي رزقو حيات تبقى قضاء أبو رمي ummaddu
حيوري جري قولي وضم بابري ودراسة كمية وقول زي مسيلاني وحيوري جري طاهر تبدي دولة مشهد وطاهر ريال بفيد واحد ومن ميقول اسمه كرنسا بريجي دمبي رغم انه حيوري جري مسيلاني واو مسوق بقى جري واحد وردتك العقبة وريجي زي ومضوين نوليت ما انتم بقرانسا سو بعد runta marka loo hadlo ha dalkoo dhan baa isku xidhnaa baac mushtarkaa saa u socday mashaariicdaa saa u socotay maanta in yar baa nool marka wuxuu la doonayaa inuu ku salaysnaado dhaqaale ummadda in loo kobciyo loona xaqsoono waxaan kaga baxayaa reer wadaniyo reer beljamo 5 bilood baa idin hadhay 4 bilood 4 bilood 4 bilood ha waxaan doonayaa laan wejkaad ku hadashaan inaad bedeshaan ummadda jamhuuriyadda somaliland ee halkan ku nool xisbigan waa xisbi qaranka oo dhan ka dhexeeya waxaa la rabaa inaad luqad la fahmayo oo dadka soo dhaweynaysaan cid walba kula hadashaan oo ku soo dhaweysaan ka kaa soo horjeeda aan ku aaminsanayn cays kuma lihidin waxaa kugu waajibay inaad u bandhigto waxaad doonayso iyo waxaad dalka qabato qofka somalilanderkaad isfahmi weydaan wax xumaanaad isku leedihiin ma jirto waxaa kaloo laydinka rabaa qolyahan habar jaala maanta markaan la hadlayay waxaan ku ii war baasha intaad silaayisii jirteen dee codka qoyda ka warrana baasha dhiga dee ma garato ha ana war isgaranayo ha ما فهمت هذا لانه دوان سكراني ما قرأت يا هل كسو بيع جرتي مال دوان كرانيا دوان كل وينك المادريا ده باخر ما قرأت ما تو مركي انا ده هرشان waa soo dhisay xabaro walna waan soo dhisay de maanta nin garaaji saan dhisay ee maahe de dhiga baan lacagta wariyaade ما بغلس هذا ولين ودني ورجلي واكا كي قرع هاي عطاني إما كي شقينا سباش يورد فاهم ويا وحنا دي شيء قرن بين بسنين خير من النسين قرن يوم يضد ayaynu dhisanay aynu doonaynay inaynu ictiraaf ku helno oo dal jira iyo ma jira aynu noqono ma beentayba ka aan aragtidiisu gaabnayn ayuu baarkayo markaan ku yar dhisay reer wadani de kulmiyaan ama faataan muraafaqada ma aqaani ma garataan ha dadka waxa ka mudaafaqadeeya may marka madaxweyne difaaci سيستم كيسان دفاعي إلهي نقوم حلل شرفي مقع بوك قتقي ما أنتنا كان صوص هذا يا وضو وحان قبائل مقع يشرف قتقي دورو هذا مسافرتي سيطي ما وحاروها الروالي دي كم الله قاضية إن هذا يدوتان فرد عبد الرحمن محمد عبد الله ما مغلى صارت ها مركا يلا يدي كشاكين قبيل يرو عقل ودو يلا يدي كشاكين وحان موسى يقروب كيسا وضوضا ها أوه تدخل مدة جمهورية الصومال وضعوا على ومال قوة نشيء أو اسكو دخنة أو اسكو دينة أو اسكو عفة أو اسكو قديرة ها ما بغلي سنة يلا يا عقل شاكين كهدي مثل مسكعة اللي قاعدوا يلا قولوا بيني عقبيلك وهي وحب نقول يسهتان ويسوي وحب نقول ما بين تبع ها markaas saraaxadii baa inagu yar munaafaqadii baa inagu yar aaminaantii baa inagu yar
ورسينا قرن لو ما دي سو قرن كوين لا يسو بدينا كنت لا يسو شيغا waxaan idinkaga tegayaa falqolyahan kulmiyana wax ka heli waan waaye war kuwiina wadaniyo gacmihiin iyo jeebkiina maxaa ku jira muubasas ma ku jira ya أنا وحنا صاحبنا هاي وأنا وعلنا هاي وأنا أسبيع أنا كبرنا ينكا حولها اللي العقد بحيه ككلام فاني البنت يو هبل بسدني يهبلايا سدني وعلى وريقي عدانا كسروا كل بان الله مكابلتي وحوي أفر بلاد باي نوحري أفرتها بلاد قفلوا أفرلاب وقتها iyo taladaada iyo xoolo darkaliba way xoolaadayso allahna haydin karaameeyo haydin sharfo waadna sharafteene wanaag iyo nabad dhulkan aad joogtaan idinkii caruurtiina ilaahay hadar yeelo dad isku xidhan oo walaala ah oo isu damqadan allah idinka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamaya taageerayaasha xisbiga wadamiga Belgium oo na hor jooga maanta waan salaamaya inta markaa ku dhaafo kullay maanta de inaga marti leeynoo yahay hadalkeenu koobnaanaya si ay dadka kale ee marti inoo yahay ay hadalka u helaan ujeedada ugu weyn loo baahan yahay inaan ka jawaabno waxa weeyaan wadankii doorasho galay doorashada kaalinta aan ku leeyahay inaan ka qaadano oo ah contribution ka inaan bixino waa kow talabaad cidii awooda inay tagto wadankii ay noqoto ama kormeerayaal noqoto ama ay noqoto maqaarib inay iyaguna isu soo diiwaan galiyaan oo ay doorashada ka qayb galaan sababta qofka dibadda ka tagay marka uu kormeero noqdo waxa yaraanaysa maxaa ku dhahdaa musuqmaasuqi baa yaraanaysa waa qof aan la iibsan karin oo $100 lagu iibsan karin oo u ilaalinaya xisbiga codadka u soo dhaca laakiin waxa laga yaabaa qofka gudaha jooga inay wax kale dhacaan inkasta oo maanta dadka inooda jooga oo dhan ay yihiin dad dhaarsan oo maxaa ku dhahdaa aan waxooga la qaadan karin oo ku kalsoonahay laakiin haddana waxay gelinaysaa maxaa ku dhahdaa marka intaasoo taageerayaal oo kormeerayaasha ay dibadda ka tagaan waxay moral gelinaysaa dadkeena gudaha jooga ee taageerayaasha ay gelinaysaa marka saddexda labada qodob horta waa inaan maxaa ku dhahdaa xoog saarno cidii tagaysa iyo xidii dhaqaalaha mid waxa ka hor lahaa kulmiyayna la tartamaya kulmiye waxa oo ah musharax musabixi seefeegiisa waxa ku qoran inuu ahaa askari baylooda inuu ahaa ayuu ahaa cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin diblomaad ah miyayna maanta cadeyn inuu askarigii fashilmay qofkii askariga ee askarnimada ku ololeynayay lahaa maanta markay dhacday arrintii gooja cadde yuuna fashilmin soomaha u fashilmay marka cabdiraxmaan maanta wuxuu noqonayaa isagaa dirayskana gashanaya askarina noqonaya diblomaadna uu ahaa markuu xisbiga wadani insha Allah ta'ala sidaan rajeynayno 13 November oo gooleyso cabdiraxmaan wuxuu xidhan doonaa dirayskii ciidanka iyo dirayskii diblomaadka ku raadinaya aqoonsiga marka waxaan rajeynayaa guul xisbiga wadani guul taageerayaasha xisbiga wadani meel kasta oo adduunka ka joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta islaamkaan idinku salaamay salaan kadib waxaan halkan ka salaamayaa egas wasiir cadaani waxaan kaloo salaamayaa dhammaan xubnaha ka soo qayb galay oo ugu horeeyo gudoomiyaha laantayada Belgium gudoomiyaha Ahmed Qaasim iyo gudoomiyaha garabka haweenka Shams Ali Cabdillaahi iyo dhammaan laamaha kale ee nagu martida ah iyo sidoo kale gudoomiyaha jaariyada gudoomiyaha Fattaax iyo laamaha jaariyada kale Luxembourg Netherlands
أربعة الإسلام واحد اللي هي welcome to Belgium welcome gacmo furan iyo xisbigeena wadaynay wadamadu ay noo kala duwanaadaan wadamadu kaliya noo kala duwanay soo dhawaadaan inta marka ka imaado marti sharafta ka soo qayb gashay mudan iyo hablo inamo iyo hablaba aad baa idin salaamaya salaam kadib marka uu soo dhaadhaco gunta iyo gabagabada waxay ugu soo socoto doorashada waxa ka haray 4 bilood oo kaliya bishan markay ka reebno doorashada la galayana laga reebo waxa weeye 7aad 8aad 9aad iyo 10aad si tirso kulmiyo 4 bilood baa ku haray 4 bilood markay dhamaato waxa la galayaa tartanka la gali doonaa waa kii lagu kala baxay fariin baan halka ka diraya nimankii fartooda eedayo maanta yaan laydin oranin fartiina lagu codeeya ee fartiina ku aarsada kuwa ku fartaan diray والله سوى قلدي عفرت نحن كقديمتي قلنا كلا ترتن نقول ترتن وحاولنا هاي ورترتن حلال وناكسن أيام نقولنا هاي نلقى هدي عيب رادسان إذا كان عيب السنة تلك يهبوا قدام مليون كيسين مات ودرتين عيب ضد الحوالة قراب حالي قرن بونا دعاء هذا هو حق وطن إذا كان قرن بونا دعاء وتلك يهبوا قصة كوبتين أيام هاي أدوكتين madaxweynaha dalka joogana maraadalku ku balaaday markii la geeyay ilaa halka ciidanku fadhiyeen ilaa min bari ilaa min galbeedo isaga waxa u baxay Soomaaliya heestii ahayd dhulka igu balaadhe markaa wixii malaha soo koobaba inta yara ku filan keenso markaa isaga anaga dalkii intuu wada gaarsiin doona Soomaaliland wada leeyahay dal wada leeyahay oo sinaan iyo cadaalad ah oo kala lahayn dadka hadii la simo qof kasta oo iska dhaxarko cadaaladiisa oo arko isaga qofku wax kala raadinay qofku isaga wax kala raadinay ma aha muhiimadu inuu xalaal in lacag soo gashay baaris laakiin waa inuu zaamiga uu ka qaybsado wixiisa dalkeedu waa beelo wada digay beelaha oo in la isku hayo rabaan la suluuxiyo la isku keeno la walaaleeyo wiil walaalo raga walaalo wuxuu ku dhaamo lawaa marka walaalayaal baan ilaahay dalkoo midaan leeyahay daawadinahay ku soo dhawaada waxaan idin leenahay dalka doorasho ka diyaar ah diyaarad ka diyaar garooba laanta biljamna mid baa furaya inagu ma codeynayno farteena kuma codeynayno meel aynu tagaynay ka ololeynaana ma jirto hal mid kaliya inagayna furan hal mid kaliya ayaana furan halkaas waa maxay waa inaynu contribution ka wadnaa waa inaynu jeebka iyo gacanta isbarnaa waa intaa kaliya waxaan idinka fadhinaa inaad lacagta keentaan waxaan idinka fadhinaa inaad lacagta bixisaan oo ugu yiilisaan dadka codeynaya ee laga soo kala gurayo goobahooda ee u baahan la kuyuga markii ku jiraan biyaha cabaan iyo baabuur lagu guro iyo in lagaga warhayaba inta weeye xisbigu waxba idinka rabaa wuxuu idinka rabaa inuu dadkiini idin codeynayay ee idinka idin matalayay ee idin fartiina idinku codeynayay maadaama idin codeyn kareen inay waxay cabbi lahaayeen waxay qaban lahaayeen aad idinku hurtaan marka contributionka waa la ka fadhiyaayeen keena aad baan idinku mahad celinayaa waxaan ka tagay awalan xiriiryaha Mustafa aad loo salaamaya idinka waa wada salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh laanta Belgiga ee soo qabanqaabisay xafladan rag iyo dumarba waan ni mahadnaqaynaa horta iyo sida fiican ee noo soo dhaweysay gaar ahaan waxaan mahadnaqayaa gudoomiyaha laanta Axmed inta ka bacdi waxa dadkii ugu horeeyay sheegeen waxa la inooga baahan yahay dadkeena dibadda jooga waa qaadaan dhaqaalahan haddaynu bixi weyno waxaynu horta la tartamaynaa waa xukuumad cashuurtii dalka iyo dhaqaalihii dalka haysata xisbigu cashuurba qaato dhaqaale kalena meel kama soo galo waxa uu cashuura u dhaqaalaa qurba joogta marka horta waxa la inooga baahan yahay maadaama 4 bilood doorashadii ka hadhay saynu rejiimka u ridno in maxay qof walba jeebka gacanta gasho oo ninkii gaadhi haysta ee jeebkiisu faarway gaadhiga u iibso inaad xilqada haysataa xilqadaha iibso oo waddanka isbedelu yimaado xukuumadda Soomaaliland waxay tiraahdaa aqoonsi baa raadinayna aqoonsiga meeqa garanay meesha yaalaanba nimanka meesha sharaxan lama ogeyn diblomaasiyiinta musharax Cabdiraxmaan Ciro iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cabdi waxay labadu ahaayeen diblomaasiyiinta arrimaha dibadda Soomaaliya ka shaqeeya oo garanaya meelaha loo maro aqoonsiga
iyo macaamiisha adduunka la iskula macaamilo imika annaka MOE-gay sameeyeen annaka hola dhibaatay noo keentay awal dowladda Soomaalidu way xisraafsaneed way waddanku hadduu warqadahaaga aqoonsado dee wuu ku xisraafsan yahay baasaboorka warqadaha dhalashada waxaasoo dhan holod xisraafsaneed imikana waxaa la yidhi xamar ka doona markaama waxbay yeeleen aqoonsigii Soomaaliland si waxbay soo kordhiyeen waxbay yeeleen bal anigu islaaha markaasi waxa weeyaan anuuna hadalkaynu ku dheeraynaynin walaalayaal dhaqaalaha bixiya oo dhaqaalaha aynu wada bixinno annagaba saas leeg baanu nahay oo laamaha dibaddaanu ka tirsannahay waanu dadaalaynaa idinkuna dadaala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qoray baa maanta timiday waxaan rajaynayaa maanta meel dheer inaan gaadhno sababtoo ah xisbigani dhaqaal u baahan yahay sida runta xisbigu aad iyo aad dhaqaal ugu baahan yahay laantan Belgiigana dadka kale way uga duwan tahay umaleyn aniga way iiga duwan tahay sababtoo tacab meeran ayaa iga galay marka waxaan rajaynayaa ummadda iskugu timiday caawa xagga noo wada joogta inuu ilaahay de gacantiina na furo qalbigiina na furo gargaarna de nala soo garab joogsatiin intaad maanta noo timaadeen alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajaynayaa Abdiraxmaan Cabdilaahi Xirro waxaan ka rajaynayaa gudoomiyaha ilaahay talada ilaahay u fududeeyo kursigaana ilaahay hadduu ugu talagalay ilaahay u qorayna ilaahay u dhib yareeyo inkastoo anigu aad iyo aad Abdiraxmaan maanta haddii nacam ninkay qaba qofkan ku xigsiin lahaa wallahi waa Abdiraxmaan Xirro sababtoo waa nin ilaahay iyo ummadiisu raali ka yihiin anigoo xisbiga ku jira oo umula ayaan habeen Holland tagay odagayga ila soo hadlay wuxuu yiri ilmahaagii baa ooyaya soo noqodkii aan Holland ka soo baxay 4 habeenimo jidka baabuurkan la socday shaag baa ku bajaray 4 habeenimo ilaa 8 subaxnimo jidkaan joogay Holland oo dhaxantu dhacayso barafa inta waxaan u sameynayay waa Abdiraxmaan inuu guuleystaan rabaa maanta maal iyo maxay ahayd iyo maal iyo wanaag iyo hanti iyo wax walba inaan la garab joogsadaan rabaa ilaahayna waxaan ka rabaa intiina meesha u timidayna inaad aamiinta ii tiraadiin ilaahay guuleeyaa Abdiraxmaan maxaad leedihiin ilaahay guuleeyaa Abdiraxmaan annagu inagaan wax inagu nahay haddaan annagu wax noqono inagana waxbaad nala tihiin maanta waxaan iga rabnaa gargaarkiina ayaan iga rabnaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aadna waad u mahadsantihiin waxaan soo dhaweynayaa wasiir Reegas Cadaani xogyaha guud ee arrimaha caalamiga ee xisbiga wadani dhammaan waxaa kaloo soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga wadani ee Luxembourg madaxda kale gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyaha xisbiga wadani ee Belgium dhammaantiin waxaan leeyahay soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin saad noo soo xasuusteen aad ugu soo casuunteen halkan kulanka leedihiin haddii aan laba qodob ka hadlo kula hadalka badin maayo aniga jaaliyad ahaan xisbi kasta oo maanta halkan wax ku qabsanaya Belgium waxaan soo dhaweynaynaa gacmo furan wada shaqayn waayo dadka reer Somaliland ee halkan waxay ku midaysan yihiin jaaliyadda Somaliland iyadoo ay sii kala yihiin xisbiyo anaga jaaliyadka ahaan waan soo dhaweynaynaa cid walba oo xisbi ah oo halkan wax ku qabsata waan u imanaynaa waan kala qayb qaadanaynaa kulankooda waxaan kulay martida anagu waa shirkan marti u baan ku nahay inteediina waan ka oranayaa insha Allah waxaan leeyahay dadka xisbiga ee Belgium degan dhammaan fariimaha laynu faray wada arkaysaan inaad markaa taana aad fulisaan baa muhiim ah hal midna waxaan leeyahay kulay dalku doorasho galay doorashona ku socda dadka reer Somaliland qofkii doonayaan iyo qofkii jecel yihiin ay dooran doonaan insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta wax laga hadlay dhaqaale laamaha dibadda oo dhan wax loo asaasay marka horeba waa dhaqaale innagu cuma bixinayno waxaanu bixinaynaa waa shilinkii haddii lala bakaylo la bixi waayo oo xafladaha la isugu ima waayo dee waa mushkilad weeye iminkaana waxaan nahay laanta ugu yar ee laamaha dibadda ka dhisan maxaa yeelay waxaa jiraa bal maanaya guriga 10 cisho meelahaas marka haddana waxaan rajaynaynaa inaanu ka qaadano xisbiga baadaha baan ka qaadan doono
وأنا بحب أنا قالها أبو بدن إن شاء الله تعالى إذا كنا واحد ذكر شيء يا إن الشيخ قاعد اللسان والحفلات صواع مرتان والله عيتنا بحسان وواحد الله ما الله أساس سيد فانتان أنت سنة ذكر شيء يا بني إسلامية xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadani egas wasiir Cismaan Saxardiid Cadaani oo aynu sug leenahay ku soo dhawow Penelogus kuma hadli karo oo kaliya maanta afka laanta xisbiga wadani ee Holland waxaan ku hadlayaa afka Penelogus waxa la yiraahdo Belgium Netherlands and Luxembourg waxaan leenahay marka horeysa soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba maanta maalinteedina Frankfurt baynu joognay tii ku xigtayna Luxembourg maantana Belgium habeen dambe oo axada intii ilaahay nafta ku simana wadanka Holland baa joogta insha Allah biidnillaahi alkariim waxaan u mahadnaqayaa mar labaadka laantan yar ee urdinka ah ee sida wanaagsan isu abaabulaysa yaan lagu canaanan yaan loo arkin in ay la mid tahay laamaha waaweyn ee wadamada qaar waa laan urdinku ah waa caasimadii labaad ma aha caasimadii dalka intaasa isu timi isa soo abaabushay habla qurux badan maamul wanaagsan aad baan ugu mahadnaqayaa Qaasim oo muddo dheer ka soo shaqeynayay iyo baalasha uu ku duulayaba waxa kaloon halkan salaad idinka sidaa laantii xisbiga wadani ee Holland si gaar ah iyadoo oo soo wakiilatay inta uu nadaadinayo gudoomiye Cumar waxa kale oo nala socotaa gabadhii haweenka noo qaabilsan sida gaarka mar walba dhaqaale ururinta hal qof baa waxa lagu bedelaa adduunka inta laga aragteen qof baa wax ka qabta maaha 10 qof hal qof baa wax ka qabta halka gabadh baa wax nooga qabata waxaan mar labaad u mahadnaqayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay mahad caaqil aad baan ugu salaameynaa boqorka TikTok maanta miidiyaha waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay jazakallahu khayran waajibkaagana insha Allah xisbiga iyo xukuumadda dhalan doonta insha Allah barakaysan waxaad noqon doontaa kuwa lagu soo irto kuwa wax laga weydiin doono dhammaantiin waan idin salaamayaa gudoomiyahayga kulli warbixinta laantayda siin doona aad baan idin wada salaamayaa ونجيت اسمان دير السلام عليكم aad iyo aad baa mahadsantahay afaya haddana waxaan asalaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay kulanka ka dambeeya waxa la rabaa loo baahan yahay in laga rur sheego oo la isku yimaado oo la soo xoojiyo xisbiga iyo maad aragtay wax wala u baahan yahay iyo dadkuba inay siday tahay ugu sara kacaan maanta laba filay aanta warban inay dhowrkan qof ka yimaadaan aad bay inoogu ceeb tahay marka wixii ka dambeeya la dadaalaan inta oran la arko aan salaamaya galo munaasabadan bilicsan sharafta iyo karaamada leh xog waraysiga ah aynu ku soo dhaweynayno xogayaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xisbiga rajada shacbiga Soomaaliland egas wasiir Cadaani soo dhawow ku leeyahay waxaan kaaga soo sarfay wadanka Faransiiska si aan uga mid noqdo goob joogayaasha caawa magaaladan caasimadda labaad ee Antwerpen ee wadanka Belgiumka inta kadib waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan laamaha kala gedisan ee xisbigu ku leeyahay waxa weeyaan wadamada Holland wadanka Luxembourg iyo wadanka aynu joogno Jarmalka wadanka aynu joogno Belgiumka inta kadib amin gaaban baynu joognaa hal qodob baan doonayaa inaan inta ku daro qodobkan ku darayaa waxa weeye doorashaynu galeynaa waxaynu badbaadinaynaa dalkeenii baynu badbaadinaynaa waxaynu ognahay xaaladda maanta dalkeenu ku sugan yahay waxa loo baahan yahay inagoo ah baalasha xisbiga rajada shacbiga Soomaaliland inaynu ka qayb qaadano waxa weeye dhiigga iyo dheecaanka loo shubayo badbaadada qarankeeni maanta waxaynu garanaynaa waxaynu ognahay garwaaqsanahay dalkeeni halku maray cidda waxay dalkeeni halka gaarsiisay waa xukuumadda maanta gobolkeedu dhacay ee uu hogaaminayay madaxweyne Biixi sidaa daraadeed waxa la inaga doonayaa maadaama aynu nahay taageerayaasha xisbiga isbedel doonka xisbiga rajada shacbiga Soomaaliland inaynu la nimaadno contribution-kii xisbigu inaga doonayay inagu waxaynu nahay baalasha uu xisbigu ku duulayo
haddii laynaga waayo inaynu dheecaan shubno oo isberber taagno hoggaanka xisbiga iyo waxaan ujeeddada xisbigu leeyahay gaari mayno wixii aynu doonaynay oo ahayd inaynu dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan aynu ka badbaadino maxay xisbiga maanta fashilmay qaawan ee dalka iyo taladiiba laambaday intaa kadib waxaynu ognahay xaalado fara badan oo isweyn baa maanta dalkeennii ka jira haddaynaan inagu ka badbaadin haddaynaan waxaweyaan dhiigga shubin haddaynaan farteenna waxaweyaan kaga codaynin xukuumadda fashilantay ee qaawan ee muuse laambaday iyo saaxiibadii dalkeenna iyo dadkeennuba waxay gelayaan xaalad adag oo aynan waxaweyaan ka soo saari karaynin waxaan u sheegayaa taageerayaasha meel kastoo aad joogtaan inaad u diyaargaroodaan isbeddel taabagala oo dhab ah maalin arbacaha 13 November 2024 6 to 6 ummadda reer Soomaaliland waxay fartooda waxay ku xaqiijin doonaan 5 sanadood ee soo socota qofkii ay ku aamini lahaayeen mood iyo nool iyo mustaqbalkooda waxay 5 sanadood ee soo socota waxaan idinka codsanayaa inaad contribution-ka xisbiga bixisaan intaasaan hadalkayga ku soo koobaya idinkoo mahadsan idinkoo sharafsan aad iyo aad baan idin salaamaya marwada aan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa waqtigii dadaalkaynu galnay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaynu dadaalno inaynu gamcaha isqabsanno inaynu guushu siday tahay u raadinno marka aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaantiinbaba waad mahadsantihiin war badan kuma soo talagelin laakiin aad iyo aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu